Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada channel-ka Samiir Ogaal. Weligaa ma jeclaysatay inaad yeelato awoodo aad dadka dheer tahay, sida inaad ogaan karto waxyaabaha ay dadku ku fikirayaan, ama inaad yeelato indho aad habeenkii xilliga mugdiga ah wax ku arki karto. Mase og tahay in badan oo ka mid ah awoodaha khiyaaliga ah ee aktarada filimaantu leeyihiin ay jiraan dad si dhab ah u leh. Haddaba muuqaalka maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa carruur la dhashay awoodo la yaab leh oo ay dadka dheer yihiin. Inta aynaan u gelin barnaamijka waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro. wiil yar oo habeenkii wax arki kara. Non Yuh Wee waa wiil yar oo Chinese ah, kaas oo leh indho buluug ah una eg kuwa bisadaha. Waalidiintiisa ayaa ka shakiyay indhaha wiilkooda kadib markii uu sheegay in qorraxda galabtii ay dhibayso. Sidoo kale markii uu iftiin aad u badan jirona ay aragtida indhihiisu daciifayaan. Intaa kadibna waalidiintiisu waxa ay guriga ugu keeneen dhakhtar indhood hubiya caafimaadka indhihiisa. Tijaabooyin badan oo uu ku sameeyay kadib waxa uu dhakhtarkii ogaaday in marka qorraxdu ku dhacdo indhaha wiilkan yar ay indhihiisu isu beddelayaan cagaar, taas oo ah astaan ay leeyihiin bisaduhu. Balse arrinta ka sii yaabka badan ayaa noqotay markii la ogaaday in wiilkan yari uu si fiican wax u arki karo xilliga habeenkii sida bisadaha iyo xayawaano kale. Markii ay soo shaacbaxday sheekada wiilkan yar, waxa gurigiisa ku soo booqday wariyayaal ka kala yimi meelo kala duwan si ay u ogaadaan xaqiiqada arrinta wiilka yar. Waxa ayna ka qaadeen tijaabooyin. Markii ugu horeysay waxa ay meel mugdi ah ku tuseen turub, waxa ayna weydiiyeen inuu sheego nooca uu yahay. Mid kasta oo ka mid ahna si sax ah ayuu u sheegay. Tijaabadii labaadna waxa ay sidoo kale meel mugdi ah ugu dhiibeen imtixaan su'aalo ah, laakiin la yaab kama uusan jawaabin su'aalihii oo kaliya, balse waxa uu jawaabihii ku qoray meelihii loogu talagalay. Wiilkan yar ayaa waddanka China looga yaqaanaa wiilkii bisada ahaa. Hasna Muslamani 12 jirkan Hasla Muslamani oo u dhalatay waddanka Lubnaan waxa ay waqti dhow ogaatay inay leedahay mucjiso ay dadka dheer tahay. Waxa markii ugu horeysay isheeda ka soo dhacay walax dhalo u eg. Intaa kadib gabadhan hooyadeed waxa ay u qaaday dhakhtar, kaas oo 3 gabal oo dhalo ah ka soo saaray isheeda. Laakiin dhakhtarku waxa uu u waayay wax fasiraad ah arrinta gabadhan. Maalinta laga soo bilaabona Hasna waxa isheeda ka soo baxayay 7 ilaa 8 gabal oo dhalo ah maalin kasta. Laakiin nasiib wanaag marka dhalooyinka ka soo baxayaan isheeda ma dareemayso wax xanuun ah, sababtoo ah dhalooyinka ku dahaaran walax jilicsan oo ka difaacaysa dhalada inay dhaawac u geysato isha. Gabadhii dabka Emma Tablet oo ka soo jeeda dalka Philippines waxa ay leedahay awood khaas ah oo cabsi leh, taas oo lagu magacaabo pyrokinesis ama awood ay ku bilaabi karto dab iyadoo adeegsanaysa maskaxdeeda. Waa arrin aan macquul u ekayn, laakiin awoodda pyrokinesis waa arrin xaqiiqo ah. Markii hore meel kasta oo Emma tagto waxa ka bilaabanayay dab, laakiin waxay dadku moodi jireen inay taraq ama kibrid isticmaasho gabadhan yari. Balse markii dambe ayaa la ogaaday inay dabkan maskaxdeeda ku bilowday. Dad badan ayaa aamini waayay arrinta gabadhan yar, waxaana dawladda Philippines u dirtay askar iyo saynis yahano si ay u soo hubiyaan arrinta Emma. Markii ay guriga tageen ayay u sheegtay inay gubi doonto meel ka mid ah guriga iyadoo oranaysa ereyga Sunok, kaas oo ah erey Philippine ah oo la micno ah dab. Intaa kadibna waxay dab ka bilowday meelo badan, balse arrinta ka sii yaabka badan ayaa ah inay gubi karto meeshii ay ugu tala gasho. Yan Chinlon wiil yar oo aad u xoog weyn. 7 jirkan u dhashay waddanka China waa mid aad u xoog weyn. Waxa uu awoodaa inuu jiido gaari 2 tan culeyskiisu dhan yahay oo dadka buuxaan. Sidoo kale waxa uu qaadi karaa aabihiis. Awoodda wiilkan yar ayaa la arkay isagoo 5 sano jir ah kadib markii uu bilaabay inuu ku ciyaaro foostooyin shidaal ka buuxo. Waxa uuna si fudud uga qaadi jiray booskooda isaga oo geyn jiray meelo kale. Dhinaca kale waxa jira shakhsiyaad xoog badan kuwaas oo samayn kara waxyaabahan oo kale, balse arrinta dad badan ka yaabisay ayaa ah in qofka waxyaabahan samaynaya uu yahay cunug 7 jir ah. Nandana Unikrishnan gabar yar oo maskaxda dadka akhrin karta. Khubaro caafimaad oo ka kala socota daafaha caalamka ayay ka yaabsatay gabadhan yari kadib markii ay ogaadeen awoodeeda mucjisada ah. Waxa ay ahayd 7 sano jir markii ay soo ifbaxday awoodeedan cajiibka ah. Waxaana xilligaas la ogaaday in gabadhan yari ay ogaan karto wax kasta oo hooyadeed ku fikirayso iyada oo aan taaban ama la hadlin. Waxaana sheekada Nandana soo jiidatay dad badan. Intaa kadib waxa waalidiinta gabadhan yari go'aansadeen in ay ogaadaan in gabadhoodu ay sida hooyadeed dadka kalena ogaan karto waxyaabaha ay ku fikirayaan. Balse waxa la ogaaday in gabadhan yari ee xiriirkan la yaabka leh kaliya la leedahay hooyadeed. Laakiin si loo hubiyo awoodda gabadhan yar waxa la marsiiyay tijaabooyin adag. Waxa hooyadeed loo sheegay inay maskaxda ku qabsato waxyaabo kala duwan sida taleefan number, magacyada meelo aanay weligeed gabadhu maqal iyo jumlado malaawaal ah iyadoo aan wax hadal ama ishaaro ah samaynayn. Laakiin Nandana mid kasta si sax ah ayay u sheegtay.